xilli ay xawli ku socoto howlaha shaqo ee lagu dardargelinayo ama lagu casriyeynayo diyaaradaha droniska ah ee aan duuliyaha lahayn ee militariga waxa ayna taas hareer socday oo Turkigu sidoo kale uu qaaday tallaabooyin la taaban karo oo dhinaca wax soo saarka ah iyo horumarinta diyaaradaha droonka ah ee ismiidaamiya ama isku qarxiya furimaha dagaalka ee cadowga. dhawaan ayayna ahayd markii madaxa warshadaha difaaca ee Turkiga uu ku dhawaaqay in qayb ka mid ah diyaaradahaas ismiidaamiya ee cusub ee lagu magacaabo Kargo ay gaarsiiyeen ciidamada qalabka sida ee Turkiga. Ismaaciil Demir oo ah madaxa hay'adaas ayaa isagoo faahfaahinaya mashaariicdaas bartiisa Twitterka ku daawacay sawirro muujinaya diyaaradan droonta ah ee ay farsamaysay shirkadda tiknoolajiyadda iyo ganacsiga ee Turkiga ee STM. wuxuuna Demir carabka ku adkeeyay in diyaaradahani ay gudaha u gali karaan furimaha cadowga iyagoo ismiidaaminaya, taasoo keentay in diyaaradahani ay dhinacyo badan kaga wanaagsan yihiin diyaaradaha kale ee dhigooda ah ee caalamka, isagoo dhinaca kalena xusay in shirkadda soo saartay diyaaradahan Kargo ay dhawaan kor u qaaday awoodeeda dhanka duulimaadka ee hawada sare waqti badanna ku duuli karto iyo xawaaraha ay ku socoto oo aad u dheereeya, iyadoo sidoo kalena kor u qaaday dhinacyada la xiriira basaasida iyo indhaynta ee tayada sare oo ah midda ay diyaaraddu ka wadato magaca Kargo oo ah kelmad Turki ah oo macnaheedu yahay galeerka ama falcon. haddaba haddii aynu fiirino sifaha diyaaradda Kargo sida ay sheegayaan xogaha iyo weliba warbixinada laga soo xigtay laanta warshadaha difaaca Turkiga, diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Kargo waxay awood u leedahay inay hawlaheeda si hufan u gudato, fariisimaheedana ay ku noqoto ama halka ay isku miidaamiso oo ay isku qarxiso si ay uga hortagto inay u gasho gacanta cadowga haddii ay dhacdo cillad u keeni karta inay ku adkaato inay ku soo laabato fariisinka ay weerarka ka soo qaaday. waxay kaloo Kargo awood u leedahay inay ciidamada ka taageerto dhanka sugidda nabadgelyada markii ay howlgallo ka wadaan xaafadaha shacabku degan yihiin, halkaas oo ay diyaaradani si fudud gudaha ugu geli karto daaraha ama godadka hoose ee xaafadahaas iyadoo farta ku fiiqaysa bartilmaameedyada loo baahan yahay in la sugo. diyaaradan ayaa qaadi karta 3 nooc oo walxaha qarxa ah kuwaasoo culeyskoodu gaarayo ilaa 2 kilogram, taasoo loo eegayo hadba baahiyaha markaa jira ay ciidamada ammaanku u baahan yihiin marka ay howlgallada kala duwan ay ku jiraan. waxay kaloo diyaaradahan Kargo ee qumaatiga u kaca midkiiba culeyskeedu gaaraya 6.3 kilogram halka xawaaraha ay ku socdaana uu gaarayo ilaa 72 kilomitir saacadiiba iyagoo ku duulaya joog 1,000 mitir gaaraya. 4 baal oo wareegsan ayaa ku rakiban diyaaradan kuwaas oo u sahlaya in hal qof uu ku qaadi karo gacanta. waxaa kaloo diyaaradan loo isticmaali karaa inay habeen iyo maalinba shaqayso si ay u garaacdo bartilmaameedyada cadowga ee taagan iyo kuwa socdaba, taasoo ay ugu wacan tahay awoodeeda farsamo ee nidaamka AI-gu ku kala saarayso bartilmaameedyadaasi. diyaaradan Kargo waxay hawada ku jiri kartaa 30 daqiiqo, waxayna qaadan kartaa oo kaliya 45 ilbiriqsi in lagu diyaariyo diyaaradan si ay u kacdo, waxaana lagu hagaa shabakado isku xidhan oo adeegsanaya qalabka dijitaalka ah ee tiknoolajiyadda casriga ah. agaasimaha guud ee shirkadda qalabka difaaca Daawud Silmas ayaa xaqiijiyay in diyaaradaha Kargo ay yihiin kuwo cusub oo ku soo biiray adeegga ciidamada militariga, isla markaana ay ka dhigan yihiin kuwo cusub oo ka yaabin doona cadowga. waxay kaloo nagu dhiirigelinayaan inaanu hore u sii wadno horumarinta diyaaradahan. waa xiisaha weyn ee adduunka oo dhan u hayo diyaaradaheena. Yilmaz waxa uu tilmaamay in diyaaradaha cusub ee Kargo ee la soo saaray ay ku qalbaysan yihiin nooc cusub oo walxaha qarxa, waxaana diyaaradda noocaas ah dhawaan lagu soo bandhigi doonaa bandhiga hawada ee Euro-Asia. marka laga soo tago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kargo, Turkigu wuxuu soo saaraa noocyo badan oo kala duwan oo la mid ah diyaaradahaasi, waxaana ugu caansan diyaaradda Albago ee baalasha go'an, waxaana loo adeegsadaa inay samayso sahanka iyo weliba dabagalka xogaha cadowga. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa in lagu weeraro bartilmaameedyada ka baxsan khadka aragga. waa diyaarad daroon ah oo fudud oo culeyskeedu gaadhayo 2 kilogram, waxaana qaadi kara hal askari, waxayna diyaaradani u shaqayn kartaa si madax bannaan iyadoo laga hagi karo meel fog. diyaaradan oo aan duuliye lahayn ayaa awood u leh inay qaado madax dagaal oo culeyskeedu gaadhayo inta u dhaxaysa 1 ilaa 3 kilogram, waxayna awood u leedahay inay hawada ku jirto 10 daqiiqo muddo gaaraysa, halka xawaaraha ugu badan ay ku duuli kartaana uu gaarayo 120 kilomitir saacadiiba. waxaa kaloo diyaaradan labadeeda baal kaga xidhan gantaalo yaryar oo casri ah iyo sidoo kale marfac yar. dhanka kale diyaaradan Togan waxay leedahay awood u sahlaysa inay si iskeeda isku qorshayso iyadoo sidoo kalena la soconaysa dhaqdhaqaaqyada cadowga iyadoo adeegsanaysa kamaradaheeda. waxay kaloo kaga soocan tahay diyaaradaha kale ee lagu gartaa weynaysooyinka kamaradaha ku xidhan oo aad uga tayo sareeya kuwa kale, taasoo ay si sax ah ku kala saari karto bartilmaameedyada maalinlaha ah iyo midka habeenkii. diyaaradda Togan waxay ku duuli kartaa joog dhan 1,000 kilomitir, waxaana ugu badnaan hawada ku jiri kartaa 40 daqiiqo, waxaana uu miisaankeedu yahay 7.5 kilogram, waxayna qaadataa 45 ilbiriqsi oo kaliya inay isugu diyaariso duulimaadka si la mid ah kuwa kale ee dhigeeda.
si kastaba ha noqotee diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee Turkigu waxay kaalin muuqda ka qaateen kor u qaadista doorka ciidan ee Turkiga kadib markii ay guulo waaweyn iyo sumcad ka soo hooyeen howlgalladii militari ee loo adeegsaday diyaaradahaasi taasoo sababtay qaab dhismeedka tiknoolajiyadda horumarsan ee ay dowladda Turkigu gaadhay kadib markii ay ka soo guurtay dal soo dhoofsada baahiyaha ciidan ee uu markaa doonayo iskuna bedeshay dal isagu wax dhoofiya gaar ahaan dhanka diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska waxaana diyaaradahaas Turkigu soo saaray kamid ahaa Anka iyo waliba Anka Sungur diyaaradaha kale ee Bayraktar TB1 iyo waliba Bayraktar TB2 waxa kale oo mashruuca soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB3 uu bilaabmay xilligana la soo afjaray nashqadaynta diyaaradda dagaalka ee cusub ee Turkiga ee lagu magacaabo Miyus dhammaan mashaariicdaas waxaa kale oo hareer socday nooc saddexaad oo kamid ah helicopterka lagu magacaabo Goch B oo si guul leh uga gudubtay tijaabadii ugu horeysay ee duulimaadka iyadoo dhanka kalena ay taasi u dheer tahay oo ciidamada qalabka sida ee Turkigu dhawaan heleen qaybtii labaad ee helicopterka weerarka ee Attack sidoo kale warshadaha difaaca Turkiga ayaa iyana ku wareejiyay taliska ciidanka badda 3 diyaaradood oo nooca B72 kuwaas oo qayb ka ahaa mashruuca Meltem 3 waxaa kaloo haatan heer gabagaba ah maraya gantaalka cusub ee lagu sameeyay tiknoolajiyadda hybrid engine kadib markii si guul ah loo sameeyay tijaabadiisii waxaana haatan caasimadda Turkiga laga bilaabay sameynta xarumo tijaabo iyo qiimeyn lagu sameeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada Turkiga marka la fiiriyo dhanka nidaamka elektarooniga ahna waxaa sii socda oo si weyn loo soo saaraa kamaradaha Katis ee loo isticmaalo diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Turkiga iyo nidaamka jiilka cusub ee Sanchak ee ah nidaamka ka hortaga weerarada dhanka elektarooniga warshadaha difaaca ee Turkiga ayaa sanadkii tagay dhigay wacdaro cusub waxaana wax soo saarkoodu kor u dhaafay $3 bilyan dhawaan ayayna ahayd markii ay dowladda Poland ku soo biirtay dalalka aadka u danaynaya hanashada diyaaradahaas waxayna Turkiga la saxiixdeen heshiis ay ku soo iibsanayso diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 taasoo qayb ka ahaa heshiiskii ugu horeeyay ee noociisa ah ee loogu dhoofiyay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Turkiga dal xubin ka ah midowga Yurub iyo waliba NATO waa barnaamijkeenu xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV